waxaa xukuumadda madaxweyne Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay magacowday la taliyaha sare wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Xamza, maxay maamulka Biden kugu xusheen oo magacaaga ugala soo baxeen dadweynaha dalkan Mareykanka? walaal ma markii koowaad oo aan xiriir yeelano xukuumadda Biden markii uu tartanka siyaasadda ku jiray waxaan ahaa la taliyaha dhaqaalaha campaignkii madaxweyne Biden sanadkii 2020 bishii saddexaad laga bilaabo marka xiriir hore toos ah ayaan la lahayn mas'uuliyadda gobolkan ka hayo ayaa fursad siisay inaan waxyaabaha ku saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo caqabadaha dhaqaalaha maaragtay soo food saaro qayb kamid ay tahay in xasilooni iyo nabadgelyo la helo si uu dhaqaaluhu u shaqeeyo marka fikradihii uu badnaay dawladdu hirgelisay sanadkii la soo dhaafay waa fikradihii aanu aasaasnay xilligu campaign-ku socday marka taasi qayb ay ka tahay tan kale waxaan muddo 20 sano ka soo shaqeynayay arinta runtii kobcinta bulshada oo meelo kala duwan aan uga soo shaqeeyay hay'adaha samafalka deeqda bixiya dawladda gobolka Minnesota hadda ka hayo xukuumadda gobolka Minnesota Governor Walz waxaan ka soo shaqeeyay shirkadaha ganacsiga oo company technology ah oo hadda 52 wadan ka shaqeeya asaaskiisa aan asaasa ka ahay marka xiriiryo badan oo saas ayaa qayb kamid ah maaragtay ayaa ku timid. Xamza, maxay tahay waxaan aad ka caawin doonto oo ah horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka gudaha iyo dibadda ee madaxweyne Biden? runtii waxaynu joognaa xilli xasaasi ah waxaynu joognaa xilli saadogtihiin markii koowaad in doorasho Mareykan ka dhacday uu madaxweyne guuleystay uu tuhun geliyo ama shaki geliyo doorashadii dhacday waxaan ognahay caqabadan inay wadamo badan adduunka ka jiraan marka xilkan la magacaabay waa xil adduunka oo dhan ah Mareykanka iyo adduunka oo gobol ama deegaan gooni ah aan khuseenin baahidiisuna ay tahay sidii lagu heli lahaa in wadan walba ayad quraan inuu dadka bini'aadamka Ilaahay karaameeyay marka karaamada waxa kamid ah inuu qofku xor u noqdo fikirkiisa miiriyada oo xor u noqoto qofku dooranayo dawladnimada uu hayo inuu xor u yeesho taasoo halkan ku caanamaalnay baan rabnaa inay sii xoogaysato meelaha kalena la gaarsiiyo. Xamza, magacaabidaadu waxa ay ku soo beegantay xilligan adag oo arrimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ay aad u kacsan tahay maxaa sababay ayaa la isweydiin karaa? waxaan u arkaa runtii waxay kamid tahay meelaha sida gaarka ah walaaca maaragtay xukuumadda Biden ay ka qabto waxaana runtii qorshuhu yahay sidii xasilooni dhab ah looga abuuri lahaa Geeska Afrika noqotana runtii meel istiraatiijig ay tahay nacfigeeda looga faa'iideysto dadka wadanka degan deegaamada degan ee noqdaan meel ay iyagu iska leeyihiin taladeedana ay leeyihiin laguna xoojiyo sidii dadku dareemi lahaayeen inay iyagu dawladooda ay tahay mid iyaga ka timid. Xamza, waxaad ka soo jeedaa gobolkan Minnesota oo ay degan yihiin Soomaali far badan oo qaxootinimo ku yimid dalkan sidaadoo kale sumcad intee leeg ayay u tahay Soomaalida Minnesota magacaabidadan? runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waxay u tahay sumcad gaar ah iyo sharaf gaar ah waxaa xusid mudan 4 sano kaliya ka hor in madaxweynihii wadanka markaa haystay intuu yimid inuu si gaara si bahdilow dadka Soomaalida maaragtay uga hadlay laga mamnuucay dadka Soomaalida qaxootiga ee Mareykanka ku yimaadaan waxa sharaf ah in maanta aan walaacaasi jirin madaxweynuhu kordhiyay tirada dadka qaxootiga lagu keenayo halkan dadka Soomaalida ana marka ka dambaysa miisaaniyadda ay ku yeelanayaan in miiska talada lagu goynayo inay fariistaan marka waxaanu doonaynaa Mareykan dadkooda leeyahay Mareykan dadku isku si maaragtay dadaalna u gelinayo nacfin uga wada helayo tan kale dadka Soomaalida waxa gaar u ah meelaha ka yimaadeen inay noqoto meel degan oo dimuqraadiyad ah oo runtii dhaqaale dadku maaragtay hana qaade ay yeeshaan Mareykankuna miisaan weyn buu arinta ku leeyahay marka mas'uuliyadda saaran hadaan nahay dadka Soomaalida Mareykanka waa inaanu taas xoojino sababtoo ah Mareykanka maanta ma aha Mareykankii hore ee naqaanay Mareykanka maanta waa Mareykan dad kala duwan ay isku dhafan yihiin taladii la wadaagayo marka runtii fikrado ka duwan oo khaas ah oo hore u arag inaan miiska soo saaro anigoo runtii deesan rajeynayo shaqadeedii gobolka Minnesota ee wasaaradda iyo xukuumadda aan ka hayay ee tusaale u tahay